waa uu jiraa, laakiin sanadkan waa mid khiyaano badan. Sababtoo qof kasta waxa uu rabaa qofka kale inuu khiyaano. La isma aaminsano. Qof kasta qofka kale ma aaminsano. Sanadkan naxariistu waa dhalad Rabbi kugu dhacaasay. Qofka aad mar dhugataa soo nasiibku ma dhaxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti wanaagsan saaxiibayaal, meel kasta aad joogtiin. Maalin wanaagsan. Waxaan rajaynayaa siday maalinteeda igu qurux badan tahay inay maalintaadu ugu qurux badan tahay. Maanta waxaan ka hadli doonaa qiso xanuun badan. Qisadan waxay ka socotaa aaladda TikTok-ga. Gabar kasta waxaad arkay oo jacayl la ooynayso. Waxaa arkay gabar kasta oo Soomaaliyeed oo dhibana ah. Waxay u dhiban tahay qof kale farxadiisa. Horta jacaylku waa uu jiraa, laakiin ma ogid goorta adiga uu kugu dhici doono iyo goorta uu adiga ku galay. Waa sida dabaysha oo kale. Baryahan waxaa socda aaladda TikTok-ga gabdho badan oo Soomaaliyeed oo iska ooynayo jacaylka. Horta in badan inta aan qisadaas aan u guda gelin, horta in badan waxaa soo jiiday gabdho iyo wiilal oo u ooynayo jacayl dartiis. Jacaylku waa uu jiraa, laakiin sanadkan waa mid khiyaano badan. Sababtoo qof kasta waxa uu rabaa qofka kale inuu khiyaano. La isma aaminsano. Qof kasta qofka kale ma aaminsano. Sanadkan wiilkii waxa uu ka shakinayaa gabadha waxay ka shakinaysaa wiilka. Ileen qof kasta waxa uu rabaa inuu nolol khiyaali ah oo samaysto. Dumarku waxay ahaayeen kun ayay koobiyaan halay kala baxaan, raggana kun ayay godaan. Laakiin taas ma fiicno. Markaa hesho qof adiga qaas ku ah, kuna fahmi karo, farxad ku sii karo, markastaana waxaa la siiyaa adiga qof ku soo dhow lama xumeeyo. Aaladda TikTok-ga waxaa ka socda xaalado xun. Gabar kasta waa ooynaysaa, waxay la ooynaysaa jacayl dartiis. Xaaladan markaad ku sugan tahay, markii lagaa dhaqaaqo waxaad noqonaysaa qof waalan. Marxaladaada ma joogtid. Xataa dadka asxaabtaada ah waa hilmaanimaysaa. Waxay isku xiraysaa qol markaa aragto qof adiga qaas ku ah aaweyso. In badan waxaan arkay gabdho Soomaaliyeed oo jacayl dartiisa u weynayo. Xaalado badan waa looga faa'iidaystaa. In badan aaladda Telegram-ka waa aragteen wax la soo dhigo gabar Soomaaliyeed. Walaalay, qofka aad jeceshahay 3 marxalado haddaad ku aragto qofkaas kuma jeclo. Waa xaqiiq, anigaa ku sheegaya. Xataa soo bar qofka aad jeceshahay hadduu marxaladahan kuu keeno iska daa. Qofkaas kuma jeclo, waqtigu kaa dhumin. Qoorsagaaraa been cidlo ah waxaa ku haysaa. Marka midda koowaad, qofka markuu adiga jirkaaga rabo oo ku dhaho video call meeshasta kuwaya jirkaaga uu rabaa, muuqaalo inuu kaa duubtoo rabaa. Qof kastaa ooynaya. Horta markay xaalada xun soo gaarto maxaa la oysin oo TikTok soo fadhiisatiin? Wixiina idinkaa leh maa dadka ka qarsatiin, maad dhooratiin maas dhoortiin. oo walaalayaalow xaaladan lagu jiro waa xaalad xun. Sanadkan waxay noqotay in lagu faano xumaanta oo keliya. war xumaan ma fiicno. Qofka bini'aadanka oo walaashaada ah oo ku aamintaa khiyaanay walaalow. walaashay adigana waxaa ilaahay kala cabsoomaysaa qof aad u dirta aad la ooynaysaa. xaaladaas ma adigana iska ilaalisay. ma fiicno. walaasheeda oo kalaa tahay ma jecli in xumaan ku soo gaarto. markasta inaa qof bini'aadan u weyso adiga asaagaaga ah u qurux badno. waan ogahay waxaad jeceshahay waad weysay, waad murugoonaysaa, waxaad dareemaysaa walwal. laakiin waxaa kugu filan hal adigoo salaad dukaday, ilaahay qalbigaagana aa dhahdo ilaahow ka saar murugta. taas aa ka qurux badan inaad qof u weyso, aad u muujiso inaad daciif tahay. waxa uu rabo ayuu kaa samaysanayaa. ma jecli inuu qof walaasheeda ah u xumeeyo. Telegram-ku aragtay waxaa soo dhigay dadka Soomaaliyeed oo 15, 14 aan qurux badnayn. markaa wejigooda aragtidna shucuuray ku gelinayaan. ma jecli ani inaan intaas kasii badiyo. walaalay, isaasto ilaahayna ka cabso. qofka aad jeceshahay markaa ku aragto xaaladahan aniga hadda aad ku sheegaya 3dan xabo iska ilaali. jirkaaga ii soo sawir hadduu ku dhaho qofkaas kuma jeclo. midda labaad, qof markuu ku dhaho gurigeyga iigu imaaw, qofkaasna kuma rabo.
oo ka dal doorsaday markuu wax hore ka samaystay uu gudbiyaa in muuqaal markaas xaafadda aad joogto oo kaaga duuba karo midda labaad saddexaad haddii uu bulshada meelkay joogto uu kugu ballamay iska ilaali marxaladahaas dhan in adiga dhibkaa soo gaaraan laakiin ma jecli gabar walaasheeda ama kasta isticnaan aragno waa saaxiibkii waa masaakiinkii oon ileh maalintaani waxnaato inaad subscribe noo saarto aan iloobin bagi aan ku leenahay Shakar Family inaad qaybta noo saarto film soo daaro waa ku mahadsan tahay waa saaxiibkii waa masaakiinkii Shakar Family وقيرسانيا أذيك قيري وقيرسان قف سجاجا وحق قيرسان عقوي قف قال وحق مقال حضوري